laleeyahay waxaa lagu murmayaa filla Soomaaliya imaada iyo xalana aan ku qaban madaxweynuhu waxaan weydiinayaa xalane miyayna ka mid aheen magaalo madaxda dalka ee aad xakunto in magaalo madaxdii meel aad tiraahdaa lagu qabto shir meesha filla Soomaaliya waa xafiiskiisa adiga fadhiisanaysa sax ma aha meesha markaa aniga aan fadhiisay shir hal iigu qabto صح ما دتك وكلا أم بحين واد أكتين واحد إذين الأحمر دتك ما أنت كوجو واد أكتين مدحوين مقالة ذي مقدشو واي ماشي أي جوجان ما أنت أضياشي إسلي باتيسين أنت وان سد أحسن أتكلم مقنعين يجي السوح الغام يمت حالنا وحي كمتها مقالة مقالة مقدشو هديد ربتي أذيك إلى البحضة أو قرب أتشركوا قبطة أن يرجيني مقالة مقدشو هدات تمد يمادين أضياش إن ما أنت أتري هذه في الله هاي مادين حجنا وأرقنا حجنا ممضنا إن عدت كاس ولا لها الصور لي ديجان ذي أي ملاحظة كاين أبار أي كجرتو جبلاند وكلا دجال أي كسعده وأن وهم بلينا عيد ماذا جبلاند شلي يدرات الدجال ذي كذا ولي مدحوينه ذي وكم كان يقولوا كفديستين أذن وهم بلينا يا أذيجو أكسون إن أتكهذا شو تكهم بليش أذيجو أكسون إن أوجم هذا على سوء أتصاب وقت إن ما لها وريجيشته سيدي قف أو حفيز كيس لقى برصة عمل شرف لا يكون تاي كومن الرون وحنكا عصنا يا إن الأرنتاس إذا أتكون تود برلمان كفدرال كسوماليا ماجورتي كيس هالكانوا فرديا ماجورتي كيس هالكانوا فرديا مال ما أنت هنا أنا كحساب تمينا قالها وسير هذا مال أنت قميصتنا وحاق قدومية محوها حمسة قدومية رئيس وزراء حمسة أيها قدومي مال أنت كلنا وحاق قدومية نكلير هذا المذوب هذا هالشيء مجرو وحبا إذن دحياله marka anagu xaq waxaan u leenahay inaan idin sheegno oo adiga madaxweynihii federaalka ah iyo inta ka hooseysaba wada tashi inaad gashaan tashigiina uu noqdo inaad qaabishaan haday sidaan hadda ay ku noqdaan oo meelahay ay ka yimaadeen madaxweynayaasha oo ahaayeen ay ku noqdaan wadankii dhibaato iyo carqalad iyo kala tag weyn baa imaanayo anagu waxaan nahay xildhibaanadii golaha shacabka wax sheegi lahaa sharci dejinta ahaa inaan ku saxno madaxweyne ma rabno dalkan inuu kala go'o qaar baa hadda naga maqan Soomaaliland gacan laguma hayo kuwa kalena yeena kala tagin dadka isku soo dhawee aabihii wadanka adaa ah aabihii federaalka adaa ah isku soo dhawee wax kasto dushaada saaro la kulan la hadal wadanka inuu kala taga ma rabno la kala dhaqaaqana ma rabno taas waa iga dardaara tan labaad waxaan baaq u dirahayaa dalka iyo dibadiisa meel kasto la joogo culumada ganacsatada cid kastaba ay noqoto in loo gurmado abaaro aad u baan baa yimid dadkii xoolihii baa ka dhamaaday dadkii baa dhamaanayo ceelashii baa waxay isu bedeleen wax aan la cabi karin oo lagu dhamaanayo daraad waxa la ii sheegay cid 100 iyo xogaa geel lahayd halna aan u harno abaaraha leysay waxay cunaan la yihiin dad ba aan u dhamaaday waa bishii Shacbaan lagu jiraa Ramadaantana waa laba bari kadib sadaqada hala diro dadku oon iyo dhibaato abaara isugu darsamay hal loo gurmado dhibaatada taalo hadalkayga ugu dambeeyo waxaan ku soo gabagabeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxweynow la kulan madasha la kulan madaxweynayaasha كيمت بطلان يجبلان سيدان يان لغو كلا تغيني مدحوينو دالك بدبادي دادك تلادا كلا وضا كدهايها او تغين ادام مدحوينيها لغو يمادنا واكو قلدهايان waxay kugu qaldahayaan mar rabaan in la heshiiyo mar rabaan in la isu yimaado mar rabaan wadanka inuu mid noqdo annagu dooni meen wadankan inuu burburo wadankan waa loo dhaartay madaxweyne saad ugu dhaaratay madaxweynimada ka sikow aabihii wadanka noqo dadkaana han noqdaan caruurtaadii oo kale oo wax u sheegayso kale sala socotaan guddiga dastuurka baarlamaanka labadiisa aqal lagu kala jabay oo kulanka waxaa fadhiyay gudoomiye ku-xigeenka guddiga dastuurka baarlamaanka labadiisa aqal gudoomiye Cabdirasaaq ayaa fadhiyay habdhowr ku-xigeenka baarlamaanka ayaa fadhiyay asagana oo asagana qayb ka ah habdhowrayaasha taway kala jabeen guddiga joogtada 15 ah 8 kamid ah
ayaa fadhisay kulanka taas waxay caddaynaysaa in baarlamaankii guddigiisa dastuurka iyo guddigiisa joogtada iyo baarlamaanka labadiisa aqalba uu kala jabay intaas marka laga soo tago waxaan aan diiradda saarnay sharci darrada iyo ku takrifalka awoodeed iyo ku tumashada dastuurka iyo xaaladda hubanti la'aanta ee la gelinayo dalka oo aan ka dhidhinnay annagoo u guntannay sarreynta sharciga sidaa la socotaan baryahan waxaa idaacadaha ku arkayseen xildhibaano saaxiibo nala ah ama wasiire ka tirsan xukuumadda oo aflagaadeynaya baarlamaanka labadiisa aqal ee xurta ah ee u taagan sarreynta sharciga ah u taagan waxaan rabnaa inaan meeshan ka sheego dadkaasi aflagaadeynaya baarlamaanka xurta ah labadiisa aqal ee u taagan sarreynta sharciga ah inay dhowr qaybood ka kooban yihiin qaybta koowaad oo ah niman xukuumadda ku jira oo wasiiro ah oo ka shaqaysta isbaaro iyo jirrinimo iyo mooryaanimo ku shaqaysta qaarkood isbaarooyin u yaallaan shabeellooyinka u yaallaan ay dhigteen ay dadka ku baabi'inayaan iyo qaar kaloo ka mid ah iyaga laftooda qaar mukhaadaraadka iyo waxyaabahan lagaday ka shaqeeya oon aflagaadeynaya mas-uul darradooda aflagaadeynaya baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal ee sharafta leh gudanaya qaar kalena waa qaarka dadka shacabka soomaaliyeed oo noosta ka shaqaysta ee shacabka soomaalida gobolka banaadir jooga barakiciya ee cafta sahanka u ah ee shacabka soomaalida ku barakiciya maalin walba ee shaqada ay hayaana dastuurka loo gelinayaan ay tahay inay olnoosta ku bedeshaan shacabka soomaalida inay ku barakiciyaan dadkaasi annaga waxaan rabnaa dad isku mustawanahay ma aha annaga waxaan nahay xildhibaano u taagan sarreynta sharciga ah ka dhaqanaya dadka soomaaliyeed soomaaliya inay kala tagta diidaan sababtoo ah baarlamaankan 28 bishii January ayuu xirmay sharciga kuma furna mooshin baan geynay mooshinkii waa la diiday kadibna wixii ka dhacay culays ahaa ee ganaax ahaa sharci darro aan waa ogtihiin intaas waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed aan u sheegno annaga kulamada annadana waan sii wadanaynaa waxaana qaadi doonaa steps badan waxaan la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada yaad ballan qaaday iyo dariska oo heshiisa intiiba waad ka baxday madaxweyne ummadii Soomaaliyeed oo maanta abaar daba dheer ay haysato oo waqtiga lagu jiro ay maanta nafta bini aadanka in la badbaadiyo la rabo inaad maanta warwareegaysato inaad nidaamkii aad isku haysay kala tuurto in baarlamaankii la kala eriyo in golihii wasiirada baarlamaan loo bedelo 85 wasiir iyo wasiir ku xigeen oo baarlamaanka ka tirsan inay golihii ku hareen baarlamaanka intiisi kale oo maxaa la yiraahdaa soo joodisay maanta waqtigaani dadka ummadda in la badbaadiyo u baahan tahay dastuur furitaankii iyo waqtigiisi waa dhamaaday timekiina waa dhamaaday yirina in banaanka la geeyay nala eriyeen hayo waliba isbaarooyin noo yaalaan madaxweyne sax ma ahan golahaada inaad fariisiso sax ma ahan ummadda inaad u gargaarto inaad daba qabato ummadda Soomaaliyeed taariikh aad uga tagtaa loo baahan yahay waxa ku fadhiyo madaxweyne waa maxaa la yiraahdaa madashi wada tashiga oo waagi hore taladooda aad ku soo baxday oo mas'uuliyadda aad kula tashato ku soo baxday waagi hore waay waxa aad ka wareegaysanaysana waa ayaga